sababta markuu gudaha galayna uu haddana uu rabo inuu u sii handado wiilka mootada ku waday waxaasoo dhan qarin inuu qariyo rabay dhiiggaas wiilka muslimka inuu qariyo run ma ahayd adiga baarista ma ka hor dhacay dadkii wacda miya asaasaan ma la hadlin waa la weydiin karaa hadda way fadhiyaan maamada oo sheegaysa inuu asiga dhibkan geysto xabadan rido oo qof dilay ma jirto Stimo oo isticmaalay kaniiniyada saqradda laga raadiyo Blue Tablet ayaa soo raacay mootafeekon uu waday Qarofow wada saxmad aysan ka jirin oo caadi loo marayay ayay ka tustay inay jam tahay waxaana xigtay inuu riday xabado baas ah oo soobay dhimashadii dhaawac kadibna waxa uu sameeyay xeelado raadtirasho ah si uu u marin habaabiyo hay'adaha ammaanka iyadoo horay ay diiwaanka ugu jirtay inuu yahay caadeysta dambi dable cabdiweli maxamed cali Stimow oo ka tirsan ciidanka asluubta ayaa loo haystaa dilka marxuum Cabdinaasir Nuur Xaaji Iidle iyo dhaawaca Cali Maxamed Ibraahim Shidane kadib markii ay haleeshay xabado si miir la'aan ah oo u riday eedeysanaha oo isagoo sarqaansan ku soo dhacay wadada Suuqliif Dharkiinley xilli uu saarnaa mootafeekon Stimow oo wadadaasi ay ula muuqatay inuu jam ka jiro ayaa riday 4 baalooto waana kuwa sababay dhimashada iyo dhaawaca kadibna darawalkii mootafeekonta ayuu ku amray inuu durba geeyo saldhigga booliska si uu isaga dhigo askari shaqadiisa jooga oo warmoog ka ah wixii dhacay waxaana uu taagtaag ka sameeyey jegboontiga saldhigga laga galo maadaama uu degdegsanaa hubin kadib ayaana loo oggolaaday inuu gudaha u gudbo isagoo xilligaasi darawalkii mootada ku handaday inuusan sheegin faldambiyeedkii dhacay afkiisana uu qabsado askari ku sugnaa jegboontiga laga gala saldhigga ee Stimow uu taagtaaga ka sameeyey habeenka falka uu dhacayo ayaa isagana ka waramay inta uu ka ogyahay dhacdadan arrintaas maxaa kala socotay arrintaas waxaa kala socdaa aniga habeenkii saldhigga waardiye ka ahay irida ninkaas oo feekon ku socdo aa ii imaaday oo wado yar leeyahay Qarofow oo feekonta ku wado aniga saldhigga albaabka laga galay laba waxa waaye laba jegboonti waaye jegboontii koowaad askarigii joogay Mas'uud la isku dhaceen qore isku qabteen aniga kan damba joogay tale unuga geediya ay daray dhahay nimankaas kala dhaxgal sidii aan ugu tagay waxaan dhahay niyow Stimow qorigan daji waxa isku heysteen adin ninkan asaga wuxuu leeyahay birta laga qaado ninkan Mas'uudna wuxuu leeyahay birta lagama qaadaye ninkan oo feekonta waday aniga waa isku dhacsanahay ninkan reeb adiga lugayna gal in ninkan ma iga haraayo ilaa saldhiggo ila gala arrintaas isku heysteen ana birta ka qaaday sidii aan ku fasaxay mar oo 8 saac habeenimo ay tahay taliye saldhigga imaaday taliye saldhiggan la wadaagay markii waxaan dhahay taliye wada oo Suuqliif ka dhacay dil oo nin feekon wato oo dilka geystay isla markaasna waxa soo galay saldhigga Stimow iyo Qarofow isla socdaan iradan taagtaagay noo galiyeen soo dhahay si dhaqso birta laga qaado Mas'uudayna qori isku qabteen ogaaw taliye wuxuu yiri waa saxan tahay ninka feekonta wada ma taqaanaa ha ninkii soo qabo taliye gaarigiisa qaatay ninkii habeenkii gurigiisa ugu tagay waa soo qabtay saldhigga keenay waardiye waa ka degay xaafadiisa aad 5 saac maray tahay hurdo ka soo kacay taliye saldhigga wicitaanadiisa iyo joornaatiga irida arkay markaa ku soo celi waxa la saldhigga si degdeg ku soo gal saldhiggan soo galay waxa la dhahay waa xiran tahay taliye maxaa ku xiranaa dhahay waxa la lahay maamada oo cunuga laga dilay la wadaagtay in oo dadkii dilka geystay qof kamid la soo xiray waxaan dhahay maamadaas mis arkin saawardiya u day guriga tagay waa hurdi haddaan hurdo ka soo kacay ma jirto way maamadaas is aragteen waan u sheegtay kiisko baaris ku socdo ka hor dhacday waa xiran tahay sidii la ugu xiray anigii ninkii aan xalay soo qabtay hal qol isku ingey iyadoo ninkan kala to feekonta waday askariga iyadoo la soo xiran kadib waa la soo daayay magaalada gala la dhahay CID ay soo wacday waxa la dhahay CID imaw CID sida ku tagay kiiskan waxa la intee ka soo gashay maxaa lagu xiray sababta lagu xiray maxay tahay waa la wadaagay saas la xiray intaasaan kiiska ka ogaanay adiga markii qofka xabadda lagu dhifay ma joogin miya shaqo saareed maya meesha ma joogin aan waardiye albaab ka saarnay way isku dhawada xabadda waa maqlay Qarofow la kii hadda inta ka dhacay Cabdullaahi Qarofow laamiya shubka adiga waa markii ani waa adi xariga baaristii shaqadii socotaa ka hor dhacda lagu haystay miya subax taliye wuxuu dhahay waxaad maamadii oo cunuga laga dilay u tagtay waxa dhaaday wiilkaaga dadkii dileen qof kamid waa la soo qabtay qof kalena waa lagu daba jiro ha dhaaday kiiska baarista ka hor dhacdo dhahay sidii lagu xiray mana u tagin maamada oo waa la weydiin karaa mana is arkin aniga iyada adiga Stimow markuu soo galay xabadda kadib uu soo galamay xabada dhacday markii xabada soo dhacday aniga geediyaas weydiin xabada dhacday Suuqliif meelahaas waa dhaanay isla markii ninkan aan soo galo feekonta wato birta laga qaado inta yiristo askariga si lugeynay oo hataa uu sugu waayo inuu qori ku qabto oo bilaabay oo xoog kale laga qaado birta oo ninkan kala tan uu leeyahay ninkan waa isku dhacsanahay niyow
كتك فيكون تعدي أسكري سلك شقيات هاي قل لكن نكان بنان كرب إن كان بنان ملو ربا إنه إلا قل مهم وين كان سيدي أم كل حاجة اللي برتاح كقاضي جودها وداي run ma ahayd adiga baarista ma ka hor dhacay dadkii aan wacdan miyaa saasaan ما لها لين والو يذكر هذا وفد يعني مامد مس أركيمبا qofka dhinta ma taqaan adiga قف كده أنت يقف كده عملوا باس نقانا سحافة أنا qaruufo iyo istimone labadana waa isnaqaanaa stimo saldhigaas kala shaqeynaa qaroofowna saldhigu imaajira askartooqa qaada isku xaafadna waana microphone iska dhiga iska fariis baaraha hoggaanka dembi baarista booliska ee CID uga wakiilka ahaa galkan ayaa garmaqalkan ku soo bandhigay natiijada ka soo baxday baaristiisa iyo sharaxaad ku saabsan sida ay wax u dhaceen taariikhdu markay ahayd 22 bisha 9aad 2025 abaaru saacadu markay ahayd 3 saac fiidnimo waxaa dhacay faldambiyeed dil ah wuxuuna ka dhacay degmada Dharkiinley mudane gudoomiye faldambiyeedkaasi waxaa geystay eedeysane dable asluub Cabdiwali Maxamed loo yaqaan Istimow eedeysanaha wuxuu mooto ka soo raacay wadada Hoosh mootadaasna waxaa wada ka ahaa marqaatiga kuwaad oo maxkamadan hor keenay lagu magacaabo Cabdulaahi wuxuuna ka codsaday in la geeyo saldhigga booliska Dharkiinley kadib inta la soo socday markii la soo gaaray suuq leef lagu magacaabo eedeysanaha wuxuu furay rasaas ilaa 4 baalood gaarayso oo meesha ku furay isla markiina waxaa goobtaas ku dhintay marxuum Cabdinaasir Nuur Xaaji sidoo kale waxaa dhaawac ula soo gaaray Dhiban Cali Maxamed Ibraahim Shidane kadib eedeysanaha wuxuu amar siiyay ninkii mootada ku waday wuxuuna ku yiray dhaqaaq saldhigga booliska geey isla markii mudane gudoomiye markii la tagay saldhiggii wuxuu taagtaag ku bilaabay eedeysanaha kuwii joogay albaabka hore saldhigga wuxuuna taagtaag ku sameeyay nin lagu magacaabo askari lagu magacaabo Mas'uud oo hadda naga maqan iyo marqaatiga labaad aan maxkamadda hor keenay kadib markii gudaha loo galay saldhigga eedeysanaha wuxuu handadaad ku sameeyay ninkii mootada ku soo qaaday wuxuu dhahay in rasaas iga fakatay adiga un baa og hadaa sheegtidna oo gudili doona mudane gudoomiye mudane garsoorayaal markii aan baaris sameynay markii aan tagnay goobta faldambiyeedka ka dhacay markii aan aragnay warqadda caddeynta dhimashada marxuumka waxa ay noo cadaatay inuu dhacay faldambiyeed dil ah in eedeysane dable asluub Cabdiwali Maxamed Ali Istimow oo si bareer ah u dilay marxuum Cabdinaasir Nuur Xaaji sidoo kalena dhaawac ulus u geystay Dhiban Cali Maxamed Ibraahim Shidane in eedeysanaha wax gargaar uusan u fidinin marxuumkii iyo ninka kale dhaawac soo gaaray in eedeysanaha isla goobtana ka baxsay si waafaqsan qodobka 450 mudane gudoomiye sidoo kale baaristeen waxaan ku ogaanay in eedeysanaha magaciisa rasmiga uu yahay Axmed Qaasim Xasan Istimow naanastiisana ay tahay balse magaca uu ku qortay oo ku diiwaan gelisay ciidanka asluubtana Cabdiwali Maxamed Ali Miskiino oo diiwaan gelisay si aan loo fahmin maadaama oo eedeysanaha uu yahay aadeysta oo horeyna u dilay dilal kale uu soo geystay maxkamaddu way maasatahay magacu bedeshay miya magaciisa saxda iyo magacaan laba kaliya Dhibane Cali Maxamed Ibraahim aawe asigana waa caafimaday markaan daraad waayo wuxuu dhahay Sacuudiga jooga Sacuudiyaan aaday amaasanta waa ogaatay Soomahan magacu ugu diiwaan gashan yahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed si fiican magaca ugu qoran ciidanka asluubta Cabdiwali waa Soomahan magaca ay dhikaarkiisa waa aragtay Soomahan ciidanka asluubta maya dhikaar ma laha marka laga soo tago labada marxaati wax ka baxsan oo cadeyn aad hayso ma jirtaa oo sheega inuu ninkan Istimow dilay marxuumka Allah u naxariistay ma haysaa ha iyo ma isla ninkii mootada waday oo maxkamadda hor keenay ku cadeynay wuxuu sameeyay intaas aan haynaa mootada markuu soo qaatay saldhigoo galay Soomaa si fiican isla saldhig albaabkiisa oo askarta meesha joogtay aqli ahaan kula tahay qof wax dilay inuu saldhigii lagu xir lahaa oo lugiisu ku galay saldhiga saaka tirsan maxkamadda waa santaa waa kana marxuumka soo qamiiskaas qabo nin dhalinyaro ayuu ahaa oo 20 aan gaarin dhaawaca Dhibane Cali Maxamed Ibraahim waa kan isagana oo dhabarka dambe faashada ay ugu xiran tahay gacantana waxbay ka gaareen sababta uu askarta koolbawaardiyaha oo sentariga jooga isla markii uu handadayo oo uu sugi laayay xataa in oo laga qaado birta inta laga qaadayo askarigu soo socdo uu sugi waay xabadu isla markiiba inuu taago askariga sentariga koowaad lahayo oo ku tal sababta oo markuu gudaha galayna uu haddana uu rabo inuu u sii handado wiilka mootada ku waday waxaasoo dhan qarin inuu qariyo rabay dhiiggaas wiilka muslimka inuu qariyo
maragii labaad oo haddaaya halkan taagnaay oo ka mid ah alifle ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu dhahay isla markiiba ninkan xabadaha uu riday oo uu soo galay saldhiga isla markiiba waxaan qadka ka arkay dhahay yarka dhaawacmaayo iyo way is yaqaaneen iyo laba alifle isla markiiba khadkiisaan ka arkay statuskiisa soo dhiguu dhahay iyo isagoo dhaawaciisa sidaan isla markii waxaan ku ogaado dhahay marka يعني دلكان قفك حبذا كلنا مدعين حافظ الجو وادقنا هبيني مواي حبذها أفرتها وهل قري كرد كليا دعي صليقنا ومقلاين دتك سنتريك سارن ومقلاين قوبتنا قوب عويس ودتك وبدناين ووضو حواي هيوي أواي من قدام يقرصوا على رحمة شرفت عليه السجا يعني سيدا وسجوا الربي يسيدا إلهي حق وصو افتيمي ويعني كلا الله بواي مدة هذا كلا ninkaan isagoo socdo lugihiisa kuma uusan imaanin amar horkeenidaan u dirnay taliyaha qaybta galbeed sidaas ayuuna taliyuhu nagu hor keenay xeer ilaalinta lagu hor keenay sidaas ayaana markii aan aragnay cadeymihii aan habraaca aan ku marsiino u dhameystirnay eedeysanahaana waa eedeysana khatartiisa leh maadaama kiiska noocaan oo kale uu horay u soo maray uu maskaxdiisa ay ku jirto waa lagu xalinaa waxaan waa dhaceen waa lagu xalinaa wixii aad dafiri kartidna dafir يعني وهالخليستي سيقول لي هاي وحنا عجيبة إنه إسكوها الله يناي وسلي هاي ما دام تليه قيبته استافا أوتها وحياله بدنا قرين كرتا تليه قيبته حق يعني وكاقرنا يا أنت سو وكوف كرايا وح معقول ما تليه قيبته وكان هذا كاني وسود يبي سوق عنقليه واي وبارست سو سمين ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme maxamuud siciid farxad ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo qisaasta marxuumka ah iyo bixinta magta dhaawaca dhibanaha eedeysane dable ciidanka asluubta Soomaaliyeed 4822 Cabdiwali Maxamed Cali Isdiimo maadaama uu falkan dilka uu geystay oo uu u geystay marxuum Cabdinaasir Nuur Xaaji Iidle waqtiga uu dilkaas geysanayana ay tahay waqti habeenimo uuna ku talagalay isagu inuu dilkaas uu qariyo oo uu marin habaabiyo hay'adaha cadaaladda meesha dilku ka dhacayna ay ahayd saldhiga agtiisa meel aan ka fogeyn isagoo wata mootofeekontana uu gadaal uu ka saarnaa xabadahaas uu riday maahana xabado kale kama dhicin mudana gudoomiye meesha xabadihiisa kaliya ka dhacay sida hadda maraga iyo kulli baarista iyo kulli lagu ogaadayna waxa cad inuu rabay inuu dafiro inuu isagu yahay qofka xabadahaas riday laakiin goobta uu u cararayay oo uu isleeyahay waa lagu qarin karaa dambigaas waa ku qarin kartaa waa meeshii laga rabay in laga baaro dambi kasta oo dhaco ilaahay mahadiis waxaa ah in sentariga iyo dadka waardiyaasha saarnaayeen indhahoodu ay furnaayeen feejignaayeen ayna arkeen eedeysanaha oo fiigsan oo qalqalsan oo raba inuu xoog ku soo galo saldhiga oo xataa sugi la inta birta laga qaadayo isagoo waliba handaday oo handadaad u jeediyay ninkii mootada ku waday oo ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdullaahi Isxaaq Xuseen oo ku handaday haddii aad sheegto iska jir dhaay marnaba ma sheegi kartid dilkan iyo waxaan dhacay iyo xabadahan dhacay iyo shibdhi afkaaga hayso dhahay laakiin Cabdullaahi maraga lagu magacaabo Cabdullaahi Isxaaq wiil dhalinyaro ah oo khaalis ay ka tahay inuu wax walba uu meeshaas ka dhacay iyo wixii uu kala kulmayba inuu sheego maxkamadda horteedana si clear oo cad uu uga waramay inuu ninkaas xabadaha riday inuu marxuumka xabadii ku haleelay oo uu u dhintay inuu isagu riday inuu isagu uu dhahay haddana xoog igu gali saldhiga gudaha markii la galeen oo handadaad gooniya u jeediyay oo dhahay ma sheegi kartid laakiin xaqa ilaahay lama qarin karo sidaas darteed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysane dable ciidanka asluubta Soomaaliyeed 4822 Cabdiwali Maxamed Cali Isdiimo waa caadaystay inuu xabadaha aan loo meeldayn uu iska ridayo hadda isagoo kiiska noocaan oo kala horay u soo maray maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa si uusan mar dambe uusan bulshada u dhibin si uusan mar dambe dhiig islaameed uusan u gelin maxkamaddu inay ku qaado aayaadka iyo qodobka aan ku soo eedeynay ee ku xusan eedda maxkamaddu waa maasanta qareenka eedeysanaha abuukaata Cumar Dheere oo ku dooday cadeemo dhameystiran inaan loo keenin muwakkilkiisa ayaa maxkamadda ka codsaday in la siiyo xoriyadiisa magacaygu abuukaata Cumar Cabdulqaadir Abuukar Cumar Dheere waxaan abuukaato u ahay dabla ciidanka asluubta Soomaaliyeed 4822
cabdiweli maxamed cali stimow si waafaqsan qodobka 15aad 16aad xeerka habka qaabta Soomaaliyeed muwakkilkayga waxa lagu soo eedeeyay in uu dil geystay waxaa halkan la keenay oo dilkiisa sheegaya markhaati feekoon la ah oo isla markhaatigaasoo 3 maalin u xirnaa keeskan asigana loo haystay waana markhaati aan la qaadi karin marnaba intaas marka laga soo tago waxaa halkan la keenay markhaati labaad oo la yiraahdo naanistiis ay tahay shubka in muwakkilkan la soo xiro sababtiisa waxaa lahaa shubka laakiin halkan lagama sheegin waa la qariyay shubka waa askari ka tirsan ciidanka booliska sidoo kalena caan ka ah aaladda TikTok asiga ayaa inta live soo galay ayuu live wuxuu ku sheegay in dilkii ka dhacay degmada Dharkeenley gaar ahaan xaafadda Suuqliif uu geystay Stimow sababta loo soo xiray muddo bil iyo bar kadib ayaa waxay ahayd muuqaalkaas oo ka sheegay TikTok muuqaalkiina waa la saaray waa laga dilay muwakkilkeena si waafaqsan qodobka 162 xeerka qaabta Soomaaliyeed waa eedeysane dabeecadiisu ay wanaagsan tahay inta marka laga soo tago keeska 434 dil markuu ka hadlayo muxuu horta ku dhismo canaasir ahaan aaskiisa muxuu yahay aaskiisa waxa laba markhaati oo qaangaar ah oo islaam ah oo aqli leh fayow maskax iyo xis intaba ma jirtaa ma jirto laba markhaati cadeynaysa oo dhehaysa ninkan wax dilay anaga arkayna ma jirto cadeynaysa ha aha CCTV camera ama cod ama wax kale oo sheegaysa inuu asiga dhibkan geysto xabadan rido oo qof dilay ma jirto markhaati aanan keeskan hore loogu xirino nadiif oo banaanka yaala oo cadeynaya ama ku dhaaranaya inuu ninkan dilay ma jirto maxkamadda warkeen inta waxa dheer in kaliya lagu soo eedeeyay wala xadish dilkana sababtiisu oo lahaa nin muuqaal duubay oo asiga nabay ninkaasoo yani kala dhaxaysay cadowtinimo ama dagaal hore maadaama keeskan asiga hore loogu xiray 17 bir uu ku jiray saldhigga Dharkeenley kadib ayuu muuqaal live TikTok ku sheegay inuu falkii dhacay asigana oo u xirnaa 17 bir inuu geystay Stimow taasana keentay in la soo xiro ilaa haddana lama haayo wax cadeyn ah ama qiraal ah ama marag ah oo maxkamaddu la hor keenay oo ku dhisan keeskan oo lagu dhisi karo 434 iyo 440 intaba maadaama keeskan uu iska cad yahay oo san dood badan aysan ka jirin habka wax loo soo bandhigay waxaan rabaa maxkamadda inaan aado gabagabadeeda aniga waqti badan ka qaadaynin si waafaqsan qodobka 119 maxkamadda waxaan ka codsanayaa maadaama keeskan si waafaqsan qodobka 110 iyo 163 xeeraalintu ay ku dhisi weysay ama cadeyn waafi ay keeni weysay si waafaqsan qodobka 122 inay maxkamadda dambi ku weydo oo ninkaas miskiinka ah askariga qarankiisa u shaqeynaa ilaa hadda cadeyn aan loo haynin inay xuriyadiisa siiso maxkamaddu waa maasantahay adiga magacaaga dood ka taagan tahay magacaaga magacayga saxda waa cabdiweli maxamed cali magaca kalena magaca kale ma jiro naanisteeda miskiino waa la Stimow meeshaan hadda ka maqluuyaaba aa laga dhisay marka Stimow waa loo bedelay Stimow waa loo bedelaa ma taqaanaa qaruufo waa aqaanaha haye qaruufo nin degmada Dharkeenley ku dhashtay waaye intaasoo sano saldhig galbeed dhex joogay marka saas awgeeda ninkaas hore isku naqaynay wiligeena waa isnaqaynay habeenkaas wax u dhaceen habeenkaas ani say wax u dhaceen ma sheegi karin laakiin aniga kiiskaas wax shaqo ah ku leeyahay ma jirto amba ani aageystay amba qorigeyga xabad ay ka dhacday ma jirto qaruufo ma ku qaadin adiga qaruufo xoosho iga soo qaaday marka xoosho iga soo qaaday wuxuu keenay tabakaamido intaada gaarin tabakaamidoga cabitaan ka soo gadanay waa soo laabtay waxaan soo maray laamyaraha waxaa ka tashtay surwaal dariis oo ani aawatay ka tashtay waa soo dhaqaaqnay kadib sidii saldhig ku galnay habeenkii wax dhacayaan waa habeenka la sheegay wax ay dhacayaan waa meel ay wax ka dhaceen mooy xabad ma ridin habeenkaas adiga xabad ma ridin kaniini ya cabi soo blue waa cabis ma jirto wax maandooriya isticmaal ma jiro qofka dhinta ma taqaan adiga maya wax aqoon ma lihi meel ku dhintana ma arag hadda ka hor ma lagu xirino adiga hadda ka hor waa la xiray hadda ka hor maxaa samaysay hadda ka hor xabad kam iga dhacday aa la xiray maxay samaysay xabad qof ay ku dhacday oo dhintay kasii horna ya hal qof ka badan dhintay miya maya kasii hor wax la ma jiro kadibna wax aan dhibaato geystay ma jirto maxkamadda maxaa ka codsanay maxkamadda waxaa ka codsanaya inay xuriyaddeeda dib ii siiso